hadda waxaan u galaynaa alaabta sida loo bedelayo masalan alaab baa ku taalay alaab kaloo safar kaloo cusub baa yimid seebaad ugu daraysaa ama alaab baa ku taalay oo qiimihii baa isbedelay ama saraa loo qaaday qiimihii ama dib hoos baa loo dhigay see la yeelayaa waxaad tegaysaa dar hoosaadkaana tegaysaa submenuga baad tegaysaa yaal doori waa ujeedaa meeshan waxaa ka muuqda waxa yaalla baad doorinaysaa stock editkaad samaynaysaa marka waad bedelaysaa marka aan bedelayo haddaba alaabtii baa ii taxmaysa shaygii aan rabaan gaar u dooranayaa marka masalan hadda waxaan dooranayaa kaba soo qabo bariiska basmatiga waxaa ii yimid badeeco kalaa ii timid 500 buu ahaa 190 baa hadda ii taalla isagaan taabtay bariiskii basmatiga ah waka intaasaa kuu taal 190 tirada cusub maxaa rabtaa inaad ka dhigtid qiimaha cusub maxaa rabtaa inaad ka dhigtid kaba soo qabo waxaa ii timid 190 kalaa ii timid ama 200 baa ii timid kaba soo qabo 200 baa ii timid qiimaha intiisa u daa halkan waxa kaaga muuqda ku dar waa ku biirinaysaa wixii hore u yaalay haddii aad bedelaysidna editkaa tagaysaa macnaha wixii waxba kama aadan bedelin laakiin qiimihii baad kala bedeshay kaliya qiimahaad bedelaysaa ama 190 ku yaalay qayb baa xumaatay ama roob baa ku daay ama jiir baa duleeliyay waxay rabtaa ha noqoto xisaabtii tiradii dib baad ugu noqotay wixii waa yaraadeen 180 bay noqotay waad bedelaysaa intii taalay baad ku bedelaysaa anigu marka hadda waxaad tiraahdaa tusaalahan waan ku biirinayaa waan ku darayaa intii hore maxaa halkaa kaaga soo baxay alaabtii wata 190 weeye 200 baad ku biirisay 390 bay noqon doontaa qiimahaas cusub baadna ku shaqaynaysaa soo qiimahaasaadna ku wadaa haa baan iri haddaan alaabtaydii tago waxaa ii soo baxaya 390 baa ii taallay okay safar cusub weeye waa hawl cusub iyo kharash cusub iyo macnaha tira cusub 390 bay noqotay haddii aan damco inaan hadda wax ka iibsho kaba soo qabo isagan wax ka iibinayaa 390 baa ii yaalla waxaan ka iibshay 90 kan iibshay waxaan ku qaatay kaashkaasaan ku qaaday 300 baa ii hartay 390 baa waayahay taas waa marka aan eegnay xagga kordhinta qiimaha alaabta badeecada bedelkeeda markaa bedelaysa haddaba see yeelaysaa haddii aad rabtid inaad qiimaha kaliya bedesho sicirkii aad bedesho sokor suudaaniga aan u yimid masalan waxaa ii taalla sokor suudaaniga 880 baa ii taalla editkaan tagay 880 kan tagay qiimahan aan bedelayaa waaba yaraynayaa qiimaha 29 baan ka dhigay edit kaliyaan tagay edit baan tagay waayahay 880 buu ahaa waxaad ku bedeshay 880 waxa macnaha isbedel ma jiro tirada cusub 29 baa qiimaha cusubna ka dhigay isagaa ku hagaya abku oo meel walba aad maraysid iyo wax walba aad samaynaysid isagaa ku hagaya waayahay haa baan iri maxaa halkaa iiga soo baxay haddii aan taabta alaabta ii taalla waad aragtaa waxay isu bedeshay tiradii saas isu bedeshay qiimihiina saasuu isu bedelay waayahay 880 waxaan ka iibinayaa 80 kaliyaan ka iibinayaa kaba soo qabo 80 kan iibshay waxaan ku iibshay dayn baan ku iibshay receipt number baan ku qoray masalan receipt number baan iri 1 2 3 4 weeye intaasaan ku qoray kaliya wax un xusuus ah baan ka rabaa maxaa marka kuu soo baxay 800 baa hadda kuu taalla okay haddaad doonaysid marka inaad ogaatid isbedeladii iyo wixii lacagihii iyo wixii soo maray laba siba waad ku ogaan kartaa inaad tagtid meesha qaybta doorinta oo shaygii aad dooratid shaygii markaad dooratid aad raad raaca aan doorto marka safarada iyo wixii kala gadmay sida tan ay ahayd markii ugu horeysay kun buu ahaa
120 baa iga gadantay qiimahaasna wuu ahaa markii dambe waa 880 intaasaa iga iibsantay qiimahanna wuu ahaa waad aragtaa siday wax isu bedelayaan waxaa kuu soo hartay dhan kalena waad ka heli karaysaa raad raaca iyo alaabta hadba qaybta iibka baad ka heli karaysaa iyana oo si yaroo sahla qiimayaalka isbedelay iyo sida isu bedelaan iyo wax walba aad ka ogaan kartaa laakiin hadda qaybtan sida alaabta loo bedelayo iyo siday tahay intaasaan ku ekaynayna